السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنة الكمركة للسود واضح أدي هذا ومهتسنتهين مقال كان وحن ربائنا ندي كل وذاقه ودي هوسات كأقل كوكيل لدى كونغرس كمريكان كأقابل سن لحسابتن كيبارتانا دا أيامانتا وحا أي سؤالة ويديين نينكا سيدو كوميلغار كحلكة عدمدا آيس وقوها يأي تود لاينس نينكا immigration كواحدة immigration كمدحدا كاه USCIS تا جوزيف إدلو إيا عدمدا CBB دا نينكا مدحدا كاه أوليرادو رودني سكوت arrimaha la xiriira howlgallada ciidamada ICE ay ka wadaan qaar ka mid ah gobolada Mareykanka ayaa wax laga weydiiyay qaarkood waxa la weydiiyay ma iscasilaysaan arintaasi waa ay diideen iyo gudoomiyaha gobolka Minnesota oo isagu maanta qaar ka mid ah ganacsiyada yaryar ay shir jiraa'id ku qabteen magaalada Minneapolis ayaa waxa uu sheegay maadaama baarlamaankii gobolka Minnesota uu furmay inay isku day doonaan in lacago la siiyo ganacsiyada yaryar maadaama howlgallada ciidamada ICE ay ka wadaan Minneapolis iyo St. Paul uu ganacsigoodii si aad ah u saameeyay dhalinyaro fara badan oo ballan maxkamadeed oo master hearing ah loo soo geliyay bilaha soo socda qaarkoodna ay maanta soo mareen dhalinyaradaasi waxaa loo soo bandhigay in wadanka Uganda loo masaafurin karo oo ay ku noolaan karaan iyo in kale arintaasina waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaa waxaan ognahay Congress-ka in ay xakiyeen miisaaniyadii ama lacagtii la siin lahaa wasaaradda amniga gudaha oo ciidamada ICE iyo kuwa xuduudaha ay hoos yimaadaan maadaama ay dimuqraadiyiintu ay ka dalbanayaan waxyaabo dhowr ah inay dhaqan geliyaan oo isbedel lagu sameeyo dib u habeyn lagu sameeyo laakiin sida muuqata hadda labada xisbi waa isku afgaran la yihiin maanta guddi hoosaadka aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka u qaabilsan la xisaabtanka iyo baaritaanada ayaa waxa ay u yeereen Todd Lyons oo ciidamada ICE ku meel gaar ka hogaankooda u haya Joseph Edlow oo waaxda immigration-ka USCIS ta madax ka ah iyo waliba Rodney Scott oo ciidamada CBB isaguna madax ka ah su'aalo dhowr ah ayaa halkaasi lagu weydiiyay ninka madaxda ciidamada ICE ka ah ayaa waxa mid kamid ah xildhibaanada uu weydiiyay ma jiraan qof kamid ah ciidamada ICE oo shaqada laga ceeliyay intii howlgalladan ay gobolada Mareykanka ay ka wadeen oo fal anshax darro ah lagu eedeeyay maya ayuu yiri sidoo kale waxaa la weydiiyay ma jirtaa in laba qof la dilay intii howlgalladan ay socdeen markii hore uu ka aamusay waxa la yiri ninkii kalkaaliyaha caafimaad ee Alex Brady iyo hooyadii oo la dilay 24kii bishii January iyo sidoo kalena hooyadii Renee Good oo iyadana la dilay 7 January labadaasi qof waa dhinteen Soomahan ha ayuu yiri sidoo kale waxaa la weydiiyay arinta la xiriirtay in madaxweynuhu iyo qaar ka mid ah hoggaanka in wasaaradda amniga gudaha ay ku tilmaameen in argagaxyaal gudaha ay ahaayeen arintaasi kama jawaabay ayuu yiri baaritaano ayaa sidoo kale socdo markaasi waxaa sidoo kale la weydiiyay wiilkii da'da yaraa ee 5 jirka ahaa oo ciidamada ICE intay ka wadeen Minneapolis isaga iyo aabihii Texas ay ku xireen walow markii dambe toddobaadkii la soo dhaafay la soo daayay wuxuu yiri wiilkaasi aabihii ayaa ka cararay ciidamada ICE-na sidaas ayay u qabteen ay macnaha si ay u hayaan markii dambena aabihii dib ayaa loo soo qabtay laakiin sidaas ma ahayn sida ay wax u dhaceen waxa sidoo kale la weydiiyay mis casilaysa maya ayuu yiri isma casilayo haddaba isagoo su'aalahaasi la weydiinayo ninka ICE madaxda sida ku meel gaarka acting u ah oo xilka u sii haya Todd Lyons waxa uu yiri How many ICE agents have been fired for their conduct under your leadership? Sir, I can get you that data. I'll get that back to you. Is it more than one? I'm not going to speak about personnel actions, but I'll get you that data. Can you tell us if at least, God, I hope at least one person has been fired for their conduct since these operations have begun? Are you telling us you can't even say one person's been fired? Sir, I'm not going to talk about personnel actions, but we will get back to you. But 2 people have been killed so far. Is that right? A nurse named Preddy and a mom named Good. 2 people have been killed so far. Yes, sir. Mr. Lyons, will you apologize to the family of Renee Good for being called a domestic terrorist by the president and his leadership? No, sir. Why not? Sir, I welcome the opportunity to speak to the family in private, but I'm not going to comment on any active investigation. Is she a domestic terrorist? Sir, I'm not going to comment on the investigation. And the president and Secretary Noem are elected officials. That's their right to their comments. But as career law enforcement, we won't speak to any. Do you agree with their comments? Sir, I'm not going to go ahead and talk about any ongoing investigation. Will you apologize to the family of Alex Preddy for also being called a domestic terrorist? Sir, again, I'm not going to speak to any ongoing investigation. You now have a decision. Will you stand with the kids who you're supposed to protect, or will you side with the killers bringing terror to our streets? Mr. Lyons, will you resign from ICE? No, sir, I won't. Why not?
Because, sir, that child that you're showing right there, the men and women of ICE took care of him when his father abandoned him and ran from Gentleman's law enforcement. time. sidoo kale Todd Lyons oo ciidamada ay si ku meel gaar ah madax ugu ah ayaa waxaa sidoo kale la weydiiyey ma jirtaa in dadka muwaadiniinta Mareykanka ah ee wadooyinka socda ciidamada ay intay istaajiyaan ay weydiiyaan inay muwaadiniin yihiin iyo in kale maya ayuu yiri arrintaasi haddana waa iska fogeeyo waxa uu yiri ciidamada ICE waxa ay wadeen howlgallo bartilmaameed ah oo dadka ay doonayaan meesha ay joogaan ee yaqaanaan ay ugu tagayaan laakiin xildhibaanka su'aasha weydiinaya wuxuu yiri arrintu sidaasi ma ahan waxaa jiray in dadka qaar midabkooda iyo accentiga luqadda ay ku hadlayaan lagu bartilmaameedsanayay ama in ay og yihiin dad soo galootay oo dadka aan cadaanka ahayn la bartilmaameedsanayay waxaa la weydiiyey sidoo kale inay jiraan wadamo sidan samayn jiray sida Naaziyiintii Jarmalka iyo midowgii Sofiyeeti inay sidaasi samayn jireen waxa uu sheegay inay jiraan wadamo noocaas samayn jiray marka macnaha waxa la leeyahay maxaa Mareykanka iyo hadda wadamadaasi ay ku kala bedelan yihiin maadaama muwaadiniintii Mareykanka iyagoo wadooyinka socda la leeyahay sharci ma leedahay mise sharci ma leeyahay qaarkoodna iyagoo sharci la xitaa la xiray ama dhibaatooyin loo geystay harassment ay ka mid tahay qofkaasi la jiijiiday gaarigiisii laga soo bixiyay iyadoo arrimahaasi la weydiinayna mar kale waxa uu yiri And Mr. Lyons, what guidance have you given to your agents about asking people walking on the streets of America to show proof of citizenship? Sir, as I stated earlier, the men and women of ICE, deportation officers, special agents, we conduct targeted intelligence-driven operation. We don't walk around on the streets asking people about their American citizenship. Really? So all of those individual American citizens who have been randomly asked are lying. Is that what you're saying? Sir, if the men and women of ICE are conducting an investigation, whether it be for Title 8 immigration enforcement or Title 18 criminal enforcement, they'll ask someone their nationality. Right, but that's not targeted because they're asking all sorts of American citizens, including off-duty law enforcement. Now, have you directed at any point your agents under the Supreme Court's racial profiling ruling to only stop non-white people and those who look like immigrants to ask for their citizenship papers? No, sir, I haven't. Now, you are aware, of course, and there's numerous well-documented instances of people, American citizens, being asked to show and prove their citizenship. Do you know what other regimes in the 20th century required similar proof of citizenship? Yes, sir. What? Sir, there was various nefarious regimes that did that. Is Nazi Germany one? Yes, but Is the Soviet Union one? I honestly, Sir, I'm asking the questions. Is the Soviet Union one? Yes, sir, but I totally, this is the wrong type of questioning. I'll tell you what the wrong type of thing is. Sir, it's my Holocaust time. Museum Reclaiming my time, sir. If you want to go see Reclaiming my Nazis, time, that's what Mr. it is. Chairman. It's not the men and women of ICE that are out there doing it every day. So to say that the men and women of ICE are Mr. Chairman, I'm reclaiming my time. I would like my wrong. time back, please. sidoo kale xildhibaan lagu magacaabo Eli Crane oo Arizona laga soo doortay ayaa waxa uu yiri madaxweynayaashii hore wadanka u soo maray masaafurin waa ay sameyn jireen oo dad fara badan wadanka waa ay ka masaafuriyeen laakiin qalalaasan noocan oo kala ah ma aysan dhici jirin waxa uu sheegay in madaxweyne Clinton uu masaafuriyay 12 milyan waxa qalalaasana aysan dhicin Bush 2 milyan ayuu masaafuriyay Obama oo madaxa masaafurinta madaxweynayaashii ugu dambeeyay hadda wadanka soo maray leeyahay isaga ayaa ugu masaafurin badnaa 5 milyan ayuu masaafuriyay ayuu yiri marka qalalaasana ma jirin Trump xilligiisii hore 2 milyan ayuu masaafuriyay Biden 4 milyan ayuu masaafuriyay Trump hadda markii uu xilka ku soo laabtay hadda sanadkii la soo dhaafay 2025 625 kun oo qof ayaa la masaafuriyay 2 milyan dad ka badanna si mutadawacnimo ah ayay wadankoodii dib ugu laabteen marka maxaa sababaya ayaa la weydiiyay ninka madaxda ka ah ciidamada CBB-da in xilligan qalalaase la sameeyo iyadoo waliba lagu gabanayo in masaafurin la sameeyo dad sharci darro ah ama dambiilayaal isaguna waxa uu yiri arintaasi waxa sabab u ah in fikrada qaldan laga gudbiyay ciidamada ICE iyo waliba kuwa xuduudaha arintaasina ay sabab u tahay warbaahintu ay arintaasi boombonisay iyo su'aalahaas iyadoo la weydiinayna sidoo kalena nambaradaasi madaxweynayaashii hore ay masaafuriyeenna la soo bandhigayay waa kan xildhibaan Eli Crane oo Arizona laga soo doorto arrimahaasi ka hadlay. I also want to go through real quick some numbers of ICE deportations with other presidents who I believe both you, Mr. Scott, and you, Mr. Lyons, have worked for. Under President Clinton, 12 million illegal
aliens were deported and removed from this country, some voluntary, some departures. No riots. Under President Bush, 2 million, no riots. Obama, who was often referred to as the deporter-in-chief, 5 million, including returns, no riots. President Trump in his first term, 2 million deported, no riots. President Biden, 4 million, including expulsions, varying by estimates, no riots. President Trump again this year, 625,000 with 2 million voluntary leaving through CBP Home App. Mr. Scott, can you explain why these other presidents that you work for, both Democrat and Republican, have deported far more people than this president and we've seen no riots? I would say it has a lot to do about rhetoric and misleading the American public about what's really going on and how important border security really is to this nation. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz iyo qaar kamid ah milkiilayaasha ganacsiyada yaryar ee maanta shir jaraa'id ku qabtay Minneapolis howlgallada ku dhawaad 3 bilood oo la soo dhaafay ciidamada ICE ay ka wadaan magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul waxa ay saameyn xooggan ku yeesheen ganacsiyada yaryarka ah qaarkood waa ay xirmeen maadaama dad imaanaya aysan jirin isla markaana kiradii qaarkood aysan iska bixin karin haddaba gudoomiyaha gobolka waxa uu sheegay maadaama kalfadhigii baarlamaanka uu dib u soo laabtay inay isku dayayaan in lacag loo ansixiyo si ganacsiyadaasi ay u sii jiraan ama ay u sii shaqeeyaan waxa uu sheegay arrintan waxaan sameynay xilligii coronavirus-ka laakiin arrintaasi waxa ahayd arrin masiibahan waxba laga qaban karin laakiin waxa uu yiri masiibadan waa mid bini aadamku uu sameeyay sidaas darteed waxaan isku dayi doonaa inaan ganacsiyada yaryar caawino hadda dawladda hoose ee Minneapolis ayaa toddobaadkii hore waxay meel mariyeen lacag 1 milyan oo dadka degan Hennepin County kirada looga bixinayo dad badan ayaa guryahoodii ka baxa la yiri marka waxa ay ansixiyeen inkastoo hadda maayarka la filayo inuu saxiixo 1 milyan oo dollar in dadka kirada iska bixin waayo maadaama dadkii aysan shaqo aadaynin in kirada looga soo bixiyo dadkaasina aan guryaha laga saarin waa kan gudoomiyaha gobolka Minnesota oo isaguna arrimahaasi ka hadlay. But I would preview for all of you as we get ready to move into the legislative session. We're working with our partners. We're listening to people like Patty who are telling us this is what we need. And I think here later this week, we'll try and get something out, put a package of relief together, especially focused around businesses. Very much we had to do this during COVID. COVID was something that we couldn't control. This is an entirely man-made and avoidable catastrophe that's fell on these businesses. But I think it's still important for us to put something together to make sure that they get back on their feet. These are resilient folks. These are entrepreneurs. They know how to make things work. But what has been brought upon them without a little bit of help is going to be very difficult. And the sad part about this is if, again, totally avoidable, totally should not have happened and had nothing to do with immigration, ends up putting businesses out of work or out of business, that is totally unacceptable. dhinaca kale maalmahan waxaa jirtay dhalinyarada Soomaalida ah ee wadanka sharci darrada ku soo gashay in ballamo master hearing ah loo soo gelinayay systemka loo soo gelinayay ilaa 40 dhalinyaro ah oo Nebraska ku nool waxa ay sheegeen in bisha March oo hadda TPS ta Soomaalida Temporary Protection Status-ka uu ka dhacayo 17 in 17 loo soo geliyay dhalinyaro kale oo Missouri ku nool iyagana waxa loo soo geliyay 16 bisha oo ilaa 10 qof ah dhalinyaro maanta marka maxkamadaasi master hearing-ka soo martay ayaa waxa ay ila wadaageen in ay jiraan in dhalinyaradaasi loo soo bandhigay in wadanka Uganda loo masaafurin karo Uganda waxa uu ka mid yahay wadamada Mareykanka ka ogolaaday in dad aan dadkooda ahayn loo soo masaafuriyo dadka dhalinyarada marka Soomaalida waxa la weydiinayay waliga Uganda ma ku soo noolay mase ku noolaan kartaa dhalinyarada intooda badan waxa ay sheegeen sida ay sheegeen in aysan ku noolaan karin wadankaasi Uganda hal mid oo kamid ah ayaa yiri wadankaasi hal sano ayaan ku noolaa marka waxa la siiyay 14 maalmood oo iga soo fikiraan in dhalinyaradaasi Uganda loo masaafurin karo iyo in kale marka sida muuqata hadda dhalinyarada master hearing-ka ay ugu jirto bisha March ee soo socota arrimahaasi oo kale ayaa sugaya maadaama TPS ay ka dhacayso in dhalinyarada Soomaalida ah Uganda maadaama uusan ka fogeyn Soomaaliya la geeyo wadanka Uganda oo la yiraahdo halkan waa inaad wadankiini ka sii aadaan sida marka muuqata arrintaasi maadaama TPS ay dhacayso inta badan dhalinyarada Soomaalida ee wadanka sharci darrada ku soo gashay bishan ilaa iyo bisha 3 ee March laga gaarayo dhamaadkeeda ayaa ballamo master hearing intooda aad iyo aad u mahadsantiin iyo nabadgelyo